مسؤولين كترسن دولة فدرالك Soomaaliya فنانين dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxay ku soo dhaweeyeen fanaanka weyn ee dalmaryare oo soo gaaray muddo kadib magaalada Muqdisho fanaanka ayaa u yimid magaalada Muqdisho sidii halkan ugu qaban lahaa bandhig faneed weyn isla markaana ugu talagalay in sanadka cusub uu kula dabaaldego qaybaha kala duwan ee taageerayaashiisa iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed fanaanka caanka ah ee dalmaryare muddo 18 sano ah oo ka maqnaa dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayuu maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wasiiro siyaasiyiin bahda fanaaniinta dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho fanaanka dalmaryare ayaa ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee Soomaalida waxaana uu qaadaa heeso kala duwan oo isugu jira jacayl wadani iyo